markii haweenaydu wax raraysay si kama ah ayay barandhada dhulka uga dhacday waxaana arkay nin faqiir ah. faqiirkii markuu arkay waxa dhacay ayuu barandhadii qaaday oo dib ugu dhiibay haweenaydii. haweenaydii aad bay uga naxariisatay falkaas waxayna u qaadatay in ninku yahay qof qalbi wanaagsan sidaas darteed ayay go'aansatay inuu ka caawiyo makhaayaddeeda. go'aankaas haweenayda ayaa si toos ah u beddelay nolosheeda sababtoo ah markuu ninku jarayay hilibka si lama filaan ah ayuu u muujiyey xirfad jarid oo cajiib ah taas oo qof walba ku yaabisay. xirfaddiisu waxay la mid ahayd midda cunto karis caalami ah. waxaa soo baxday in ninkaasi horay u ahaa boqorka cunto kariska oo tartan weyn ku guulaystay balse ardaygiisii ayaa masayray guushiisa wuxuuna daawo hurdo ah u shubay shaahgiisa. nasiib wanaag ninku wuu badbaaday laakiin xusuustiisii ayuu waayey wuxuuna noloshiisa ku dhammeeyey isagoo faqiir ah. waxaa laga yaabaa in nasiibka samada uu isu keenay isaga iyo haweenaydii naxariista lahayd. haweenaydii waxay u shaqo siisay makhaayaddeeda balse arrintaas ayaa madaxii kariska ka xanaajisay sababtoo ah ninkaasi karisaha ah wuxuu jeclaa haweenayda markuu arkayna iyada iyo faqiirow isdhow wuu masayray. wuxuu go'aansaday inuu ninka cashar u dhigo markaasuu amray inuu hilibka jaro isagoo sheegay shuruudo adag oo badan. ka hor intuu hadalkiisa dhammayn ninkii ayaa durba hilibkii si qurux badan u jaray oo hortiisa dhigay. shaqaalihii kalena aad bay ula yaabeen oo ammaan badan siiyeen xirfaddiisa. madaxii kariska oo xanaaqay ayaa hilibkii ka qabsaday wuxuuna iska dhigay inuu ka xanaaqsan yahay. si uu u eryo ninka wuxuu mar kale u diray shaqo adag inuu ukunta tumo isagoo shuruudo adag raaciyey. cadka iyo jaallaha waa inay si buuxda isu dhex galaan ushiina waa inay si toosan ugu istaagtaa ukunta la tumay adigoon dhicin. ka hor intuu hadalkiisa dhammayn ninkii mar kale mucjiso ayuu sameeyey wuxuuna ukunta ka dhigay sidii la rabay. xirfaddiisa ayaa qof walba qiray balse madaxii kariska weli wuu xanaaqsanaa. maalin kale ayuu ninka shaqada ku jiray markaasuu madaxii kariska si lama filaan ah u amray inuu cuntada u geeyo macmiilka. laakiin markuu ninku arkay cuntadii wuu fikiray wuxuuna ogaaday khalad ku jira. madaxii kariska ayaa ku qayliyey balse ninkii wuu u sheegay khaladkii wuxuuna yidhi macmiilku si hubaal ah raalli kama noqon doono. hadalkiisa ayaa madaxii kariska ka caraysiiyey wuxuuna doonay inuu ninka dilo. shaqaalihiina waxay dhinac ka galeen madaxooda. markaas ayaa haweenaydii timid si ay u hubiso cuntada. madaxii kariska ayaa si degdeg ah cuntadii uga qaaday ninka oo u dhiibay haweenayda. laakiin markuu macmiilku cunay si degdeg ah ayuu u xanaaqay cuntadii run ahaantii ma fiicnayn. aabbaha haweenayda ayaa isna dhadhansaday wuxuuna arkay in cuntadu khaldan tahay markaasuu haweenaydii u yeeray oo weydiiyey waxa dhacay. haweenaydii markay weydiisay cidda cuntada samaysay madaxii kariska ayaa isleeyahay waa la ammaanayaa wuuna is-casriyey wuxuuna qirtay inuu isagu sameeyey. haweenaydii waxay si toos ah u sheegtay khaladaadkii cuntada ku jiray isla sida uu ninkii faqiirka ahi horay u sheegay. madaxii kariska wuu gariiray wuxuuna ku dooday in tan ay ahayd cuntadiisa ugu fiican islamarkaana ay adag tahay in la sameeyo cunto macmiilku jeclaado. haweenaydii way wareertay sababtoo ah macmiilkaas wuxuu ahaa madaxweynaha ururka cunto kariska waana in si fiican loo adeegsadaa. markaasay weydiisay qof kasta oo joogay haddii uu awoodo inuu cunto wanaagsan sameeyo balse cidna ma jawaabin. markaasay indhaheedu qabteen ninkii shaqaynayay meel u dhow. iyadoo xusuusatay xirfaddiisa waxay go'aansatay inuu isagu isku dayo. laakiin madaxii kariska ayaa si degdeg ah u diiday isagoo ka cabsanaya in booskiisa laga tuuro haddii ninkaas guulaysto. wuxuu ku hanjabay in haddii uu ninku sameeyo cunto makhaayaddu halis gelayso. haweenaydii hadal dambe ma aysan siin waxayna amartay in ninku cuntada diyaariyo. ninkii wuxuu sameeyey cunto ku salaysan dhadhanka macmiilka markii daboolka laga qaadayna urka cuntadu meel walba buuxiyey. macmiilkii wuu dareeray wuxuuna rabay inuu dhadhamiyo laakiin keliyihii ayaa si kama ah cuntadii u tuuray dhulka. keliyihii waxaa soo diray makhaayad kale oo cadow ah si ay sumcadda haweenayda u baabiyaan. makhaayadda cadowga ayaa soo jeedisay tartan rasmi ah 3 wareeg ah cidda ku guuldareysatana waa laga mamnuucayaa dunida cunto kariska. aabbaha haweenayda wuu aqbalay tartanka. wareeggii ugu horreeyey wuxuu ahaa xirfadda mindida. kooxdii cadowga waxay keeneen nin caalami ah oo mindi yaqaan kaasoo dadka oo dhan la yaabiyey. dhinaca haweenaydana qofna ma gaari karin heerkaas. markay dadka kaftamayaan haweenaydii ayaa tiri iyadaa ka qayb qaadanaysa. laakiin ninka cadowga ah ayaa aflagaadeeyey isagoo sheegay inaysan u qalmin cunto karis wuxuuna isku dayay inuu taabto. markaas ayaa ninkii faqiirka ahaa horay u yimid wuxuuna sheegay inuu isagu ka qayb galayo wareegaas. madaxii kariska ayaa qayliyey isagoo leh ninkani waa faqiir. haddii aan isaga tartanno si xun ayaan u jabaynaa. dadka oo dhanna waxay rumaysteen in ninku qasab ahaan guuldaraysan doono. cadowgii ayaa kibir ku yidhi haddii uu ninkani jilba joogsado oo i baryo waan ka daayay eebaynta. laakiin waxa uusan ogeyn ayaa ah ninkani wuxuu ahaa halyeygii hore ee boqorka cunto kariska oo hal dhaqdhaqaaq oo keliya uu ku beddelay aragtida qof walba.